Waa qiso xanuun iyo murugadeed dusha ku wadata. Bini'aadamku meesha uu rabo waa uu ku noolaan karaa, balse ma ogaado halka sadkiisu yaallo ama farxaddiisu ay ka bilaaban doonto. Maanta waxaan idiin wadaa qiso la magac baxday Jacaylkii Waalida Abuuray. Haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee channelkeena, fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo si aad ula socoto sheekooyinka iyo muuqaalada aynu halkan soo gelin. Siciid Cabdulle waa 24 jir ku noolaa baadiyaha gobollada Galgaduud. Waqti dheer ayuu ku soo qaatay halkii uu horay ugu noolaa oo ahayd baadiyaha Dhuusamareeb. Siciid waxa uu go'aankiisa ka dhigay in uu u soo hayaamo magaalada Muqdisho si uu noloshiisa wax uga beddelo, horumar dhanka nolosha ahna uu sameeyo. Siciid Cabdulle safarkiisii ayaa u soo bilowday. Waxa uu soo gaaray Muqdisho, xaafadda aydiisa ayuuna ku degay. Nolol kale ayaa u bilaabatay Siciid. Waxa uu u yimid magaalo dadkeeda iyo dhaqankeedaba fahan kale oo gooniya uga baahan. Meel uu shaqo u daydayana maba uu garanayo. Ugu dambeyn Siciid waxa uu ka shaqo bilaabay dhismaha guryaha. Markii uu shaqo maalmeedkiisa soo dhammaysto, lacagta inta ugu badan meel ayuu dhigan jiray si ay noloshiisa kayd ugu noqoto. Siciid isaga oo shaqadiisa dhismaha wata, muddo kadib waxa ay isbarteen gabar la yiraahdo Farxiyo. Siciid waqti fiican ayuu la qaadan jiray Farxiyo, isagoo u arkayay in ay noloshiisu ku qanacsan tahay, deganaanna uu ku dareemayo. Siciid iyo Farxiyo waqti dheer ayay socotay sheekadooda. Ololka caasha waa uu adkaysan waayay Siciid. Waxa uu gabadhii la wadaagay in uu si dhab u jecel yahay, noloshiisuna ay tahay mid xiiso oo dhami ka weyn. Farxiyo waa ay qancisay Siciid, iyaduna waxay la wadaagtay inay jeceshahay, mustaqbalkana ay doonayso inay la wadaagto. Siciid waa uu ku farxay hadalkaas. Waxa uuna dhexda ka istaagay jawi jacayl oo cid daacad u ahay aanay jirin. Lacagta uu Siciid dhismaha ka soo shaqeeyo inta ugu badan dhinaca gabadha ayay u leexan jirtay, oo iyada ayuu siin jiray. Hadba meesha ay doonto ayuu geyn jiray, waxa ay rabtana waa uu u gedi jiray. Siciid waa warmooge, dhagar jacayl ayaa loo maleegay. Farxiyo ninka leh ayay hoos kala socotaa, oo hawsheedu waa sahal. Jacaylka iyo duruufaha Siciid isku biirsaday uma ay jeedo ee ku dangaar oo ka dhaqaaq bay ka tahay. Siciid daqiiqad kasta waa uu la hadli jiray Farxiyo, si maanta waa ay uga duwan tahay maalmihii farxadda ee noloshiisa soo maray, oo maqalkeeda ayuuba waayay. Siciid waxa uu isku dayay sidii maqalkeeda ama araggeeda uu ku heli lahaa Farxiyo, oo ah gabadhii uu ka doonayay in ay mustaqbalka la wadaagto, si ay noloshiisu u noqoto mid qurux badan. Farxadda iyo nolosha iyada uu ku haystana ay u noqoto mid heer iyo horumar wanaagsan ay uga sameeyaan. Siciid oo arrinkaasi uu niyadiisa ku jiro, waxa uu raadin ugu dhaqaaqay Farxiyo si uu iyada ku heli lahaa. Siciid waxa uu gaaray guriga ay magaalada Muqdisho ka deganeed Farxiyo si uu xaalkeeda iyo wacaalkeedaba uga wardoono. Siciid waxa uu la kulmay waalidkii dhalay Farxiyo. Waxa ayna u sheegeen in Farxiyo aanayba joogin guriga, in ay gabadhooda la yihiin. Meesha ay joogto iyo halka ay ku sugan tahayna wax war ah aysan u hayn. Siciid arrinkii la yaab ayuu la noqday, waayo waa qof jacayl hayo. Ololka caashaq ayuu la riimayaa. Hadba waxa uu la daala dhacayaa oo gees uu la leecayaa jacaylka uu Farxiyo u qabo. Waalidku Siciid waxa ay ku qanciyeen in ay u maleynayeen in dhinaca Siciid ay Farxiyo jirto, laakiin haddaysan ku maqneen xagga Siciid, ay jiraan arrimo kale oo hoosaad ah, kuwaasoo lala xiriirinayo in nin kale ay la dhuumatay. Durbaba Siciid waa uu isbedelay. Indhihiisa ilmo ayaa ka soo qubatay. La yaab iyo amakaag ayay ku noqotay in Siciid Farxiyo ay ka raacdo,
amaba ay ka doorbido nin kale. Waayo Siciid waxa uu ku taamayay ama uu ku rajo weynaa in Farxiyo ay noqon doonto midda noloshiisa wax weyn ka bedeli doonta, mustaqbalkana uu la wadaagi doono. Siciid miyir waxa uu dambeysay markii loo sheegay in Farxiyo ay nin kala raacday, oo isla xilligaasi waxa uu orday halkii uu wejigiisu u jeeday. Siciid waxa uu ku dhex cararay magaalada isaga oo miyirkiisu tagay, una waashay jacaylkii iyo galgacaylkii faraha badnaa ee uu u hayay Farxiyo oo ahayd gabadha dhagarta u maleegtay. Haddii aad muuqaalkan daawatay, walaalayaal aynu u wada ducayno Siciid oo dhibana u ah Farxiyo. Adduunyadu ma dhibla, dhibka dunida yaalla oo dhanna laguma dhiibin. Allah kuu boogadhayo walaal Siciid.